بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلن عصب أي فيديو عصب هذه أدبا ما صنتها داوشة يعني رجلين تبا قف كسرنا وحكوا سلامي مجلسة أي منسب كيسة أنت بركل جاي ما دو عن كان لنا أرنتن تن كدعدي لاس عناد dalkeen iltaageena haduu ilaahay raado marka hore waxaan tacsi u diray dhamaan dadkii shalay ku geeriyooday laascaanood labada dhinacba shalay ku waxyeeloobay tii ku dhaawacantay iyo intii ku geeriyootay intii dhaawacana Allah uu booyadhayo nabad ayaa naas la nugulay nabad ayaa wax walba lagu helaa colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho colaadi waxba ma soo kordhiso colaad wax ay soo kordhiso oo laga dhaxlo ama laga dheefo male kulli waa la heshiini oo heshiis waa iman is afgarad baa iman marka dadkii dhintay intii lagu dul heshiin lahaa dadka oo nool heshiiyo oo la isku tanaazulo ayaa kulay aniga ila qurux badan aad iyo aad baan uga xubnahay inagoo ku jirna qarnigii 20aad 2023 in la isku laayo oo Soomaali ay hub isku qaadato oo islayso markaad eegtid wadanada jaarka ana wadan kasta oo isagu isdhisayo wadan kasta haduu yahay wadanada hadda soo koraya haday tahay wadanada kale adduunka wadan kasta oo berlisanaya halkii dadka ficiina aan la tartami lahayn in inagu aan isqaraacno oo inagu isku soo jeesano waa nasiib xumo labo is cunaya waraaba iskama dhawaan baa هوري بهاي تاس لبا اسعنيا ورابا اسكما دبال هورينا waxaan u sheegahay yani Soomaali maanta way jeeftaa maanta wax la yiraahdo Soomaali laakiin waxa jira qabiilad nin kasta wuxuu aaminsan yahay qabiilkiisa nin kasta wuxuu u dhimanayaa qabiilkiisa wada jirkii iyo wax wada qabsigii iyo isku xidhnaashihii iyo wax wada doonkii iyo dawladnimadii ma jirto qof kasta waxa arkay tiis yareed buu hoos u ooyay oo tii qabiilkiisa ayaa maxaa la yiraahdaa ayaa ku dhib ah oo wax walba kala weyn wax walna kala culus nasiib xumo taasi waa nasiib xumo inagu dhacday dad kale waxa jirta arrinka si boonboonanaya oo waxyaabo aanan jirin hawada maxaa la yiraahdaa marinay markaad hadlaysi looma hadlo si qof caadifaysan looma hadlo laakiin waxa loo hadlaa si qof aqli leh ayaa loo hadlaa dad waaweyn oo wiilal iyo gabdho leh ayaan arkay oo leh qaasatan baraha bulshada ka hadlay waxay sheegayeen ciidan baa Djibouti laga soo qaaday oo ka dagaalamay laascaanood yani aqligaas qofka uu ku jiro ee waxa aaminsan wuxuu soo kordhinayay wuxuu soo biiray qof ciidan baa Djibouti laga soo qaaday oo laascaanood ka dagaalamaysa Djibouti iyo laascaanood inteeba isku jira sababta ciidanka Djibouti looga soo qaadayo ee reer laascaanood loogu leynayo maxay tahay meeshay kartaa yani markaad hadlaysa qudadeeda waxa laga hadlaa wax yani macquul ah wax logic ah wax laga qaadan karo aanad iga dhaadhicini ciidan baa Djibouti laga soo qaado laascaanood lagu leynayo sheekadaas iyo beentaas iyo filimaantaas hore baa u soo daawan Djibouti waa dal isa halkaaba iska degan tahay walaad ciidan bay u soo dirtaa walaa hawl kale ku soo darsataa Djibouti waa walaalihiin waa dad in dhashay kuwan iyo kuwan labadaba walaal bay leedahay markaas hadallada aan fiicnayn ee aad nagu duuraysiin in aad iska dhaaftiin waa wax fiican yani hatta markaad wax soo qaadanaysiin wax macquul oo inaga qaadan karno oo dadku ay dhageysan karaan la yimaad wallahi dad waaweyn baa arkay oo wiilal leh oo gabdho leh oo intuba leh ciidan baa Djibouti laga soo diray Djibouti baa ciidan laga soo diray ciidanka Djibouti laga soo diray maxay ciidanka Djibouti loo soo dirayo ee Soomaali lagu leynayo ee Soomaali lagu baabi'inay maxay tahay bal xabad hal askari ilan ciidan baa Djibouti laga soo diray oo ka dagaalamay sheegtay Soomaali ciidanka laascaanood ka dagaalamay Djibouti sheegaysiin askariga aad qabatiin balna tusa askarigan baa Djibouti ka yimid cadayn ma haysiin wax cadayn oo haysiin xaqiiqo ma jirto laakiin waxaasi wax wanaagsan maahay anigu dhibtaas inuu qof inaga dhinto in dhibaato in soo gaadho wallahi kuma faraxsanin marna kuma farxan dad walaalaha ayaa tihiin dubkaygi baa tihiin dhiigaygi ayaa tihiin marna kuma farxano inay dhibaato in soo gaadho haday tahay Somaliland iyo haday tahay laascaanood iyo haday Soomaaliya tahay intuba dadku waa dadkaygi weeyaan walaalahay weeyaan markasta waxaan jecelnahay wanaagiina iyo wada jirkiina iyo wada noolaashihiin annaka iyo inagu garab baan isku nahay garab ayaad mootihiin anagu garab baan inna arrinkaas horta arrin aan niga qaadno maahay aad baan uga xunahay wixii shalay halkaas ku dhintay ku naf waayay kuwii ku dhaawacmay intii dhimatay Allah u naxariiso inta dhaawacana Allah u booyadhay aad iyo aad baan uga xunahay aad iyo aad ayaan uga xunahay haday tahay reer laascaanood iyo haday tahay reer Hargeysa reer Soomaaliland waxaan leenahay wada hadal ayaa wax lagu yahay wada hadal ayaa wax lagu dhameeyaa wada hadal iyo inbuu wax ku xalismaa colaad iyo dagaal waxba ma soo kordhiyaan wax ay soo kordhiyaan mana jiro doon horena looma arkin dibna looma arkay qori iyo colaad wiil baa ku dhintay bal dhowr iyo 30 qof ayaa laga diiwaan galiyay shalay inta ku dhimatay laas hadii la wada hadli lahaa dhowr iyo 30 ka qof ma dhimateen oo marka runta laga hadlo weeyaan markaas aad iyo aad baan uga xunahay ilaahayna waxaan weydiinaynaa inuu ilaahay arrinkaas biyaha ku shubo dadkaas inuu qalbigooga burcad isku mariyo inuu qalbigooga ay wala hadlaan oo wixii dantooda ah iskugu yimaadeen
yihiin oo ay ku heshiiyeen taasi waa taas xataa rag waaweyn oo leebaa jiray reer Jabuuti hala laayo qof ma haddaad aragtiin dila meeshaad ku aragtiin qowraca maxaa la yiraahdaa yani waxaas waxay tahay anu markii hore dadka walwaalan ban moodiyay xataa kuwa caadiya waxa ku sheekanay dadkan miidiyaha ee walwaalan qaarkood anu kuwaas waxaan lahaa kuwaas waaba ayaan lahaa laakiin dad waaweyn oo aan islahaynba dadkan waa dad walwaalan mooyaan haddii waalida soo wataan reer Jabuuti hala laayo reer Jabuuti waaba Soomaaliland dhan baba inay dhaxaysay xagee inaga soo gaarayeen laba reer Jabuuti dhibaatadiinan iyo dhibkiinan marnaba kuma faraxsan raalina kama ah dad walaalaha ay tihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad wada jirka iyo wada noolaanshaha iyo walaaltinimada taaba anaga dhan kastiba haday tahay Somaliland haday tahay Soomaaliya iyo haday gobolada dhexe haday maxaa la dawlad deegaanada tahay intaba markastiba Jabuuti shacabkeegu intaba uu jecel yahay waa walaalahood markaas garab taagan yahay markaas waxaan ilaahay marka wax laga hadlayo waxa laga hadlaa muhiim ah waxa laga hadlaa wax suuragal ah waxa laga hadlaa wax dadkani u cuntamaya ayaa laga hadlaa dadkan dhageysanay laakiin waxaan aan maqlayno wax macquul ah oo qaadan karno wax aan maxaa la yiraahdaa aan qaadan karno ma hala laayo hala dilo Jabuuti ma qabsan doonaa oo soo gali doonaa dad waaweyn ba waxa ku sheekanay waxaad arki doontiin beeranahu Jabuuti shaah ka cabeen marka hadalada qaarkood wax wanaagsan ma anagu marnaba mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan ku celin anagu markasta Soomaali waa dhiigayga waa walaalahay waa garabkayga dibna uma qabno maxaa la yiraahdaa wax colaada oo u qabnana ma jirto laakiin waxaan aad sheegaysiin ciidan baa laga keenay Jabuuti oo ka dagaalamaya oo ciidan baa laga soo qaaday oo la saanood ka dagaalamay waxa naga qaadanayna maahan wax naga geenina maahan aad baad ugu maasantay daawashada video inta isku yimaad doona kan kulmid waxa naga tagayna sidaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum.